cabitaan waxaa yaala caano muus, caano chocolate, caano timir, cocktail, qara, babaay, cambe, liin. casho fudud waxaa taala shawarma, fish burger, chicken burger. casho fuul waxaa taala baasto, bariis, kalluun, chicken steak, daafi, suqaar. أنا ما أحس قراها قرا في سفر لهاي يجي عن قبلين أنا حابي عنوف أنا عن تمريك أوكي عن تمر عن موس قرا أيوة إبراهيم داب waxaan ku dhashay waddanka Australia waxaan hadda ka shaqeeyaa kulan oo waan ku faraxsanahay 100% waan ku ganacsanahay gaalkacyo inaan anoo joogo inaan ku sii shaqeysto waxaan u arkaa wax fiican inta ugu badan dadka waxay ku badan yihiin casarkii soo toosoo soo shaati cadee maalin dheeri waxaan ku xisaabtamaa habeenkii anoo wax jeebkayga ku jira inaan ku seexdo nolosha qurbaha nolosha xaggaan waxay ku kala duwan yihiin xaggaa waddan gaalaa weeye waddankaagi ma aha dadkaagi ma joogaan alone iyo depression iyo stress baa qof ku dhacaya marka xaggaa jooga halkan laakiinsi free baa tahay dadkaagi baa jooga ehelkaagi baa jooga familkaagi baa jooga marna baahanaan maysid meeshaan meel wanaagsan weeye waddankayga weeye waa jeclahay waan ku qanacsanahay dhalinyarada waxaan ku dhihi lahaa meesha ka kaca oo shaqaysta adeer macaana dhididkaaga intaa shaxaad iyo wax kale aan la aqoon raadsan lahayn dhalinyarada facayga xaggaa ma shaqeeyaan oo waxay boqoshay ku jiraan filin iyo waxaa ku jira gaangisnimo iyo waxaan la aqoon bay ka daba ordayaan dhalinyarada xaggaana markaa u imidna waxa weeye dad wada fadhiyo far inay qaadaan rabin guddigood waxaa ku wada qufilan dibad iyo xaggaa markaa dibadda aada waa shaqaysanayaa iyo dibadda maana u dhalan waddankan baa u dhashay waddankan waa ciidayda dadkayga ehelkayga tolkayga meeshay wada ku nool yihiin heerna inaan gaarsiiyo oo aan wax soo saar aniga shakhsiyan aniga i gaar ah inaan ku sameeyo waa hamigayga haddii ilaahaydno waxaan kaloo leeyahay dhalinyarada inay meesha ka kacaan waa muhiim because waddan wuxuu ku noqdaa waa bulshadiisa bulshadiisa hadday yihiin dad dowlad bas sugaya meelna ma aadayaan laakiinse ayaga hadday isbilaabaan inay ismaamulaan oo wax soo saar ayaga iska keenaan markaasaa insha allah wax walba hagaagayaan working isn't embarrassing if you work you know what I'm saying every night you sleep with a nice steady mind you know what I'm saying calm and I promise you that's the best sleep you ever get once you start working because working isn't an embarrassing thing it's a way of life it's a way to keep you alive tan waxay dhiirigelinaysaa oo ay garab siinaysaa dhalinyarada qurbaha ku sugan in ay fursad u helaan ay arkaan inay waddankooda ka shaqaysan karaan dhalinyarada gudahana waxaan leeyahay waxaa bannaan fursadeed ku soo dhaweyn lahaydeen walaalihiin intii 20 sano gudaha aad ku dhibtooteen dagaalada iyo dhibta ay socotay iyaguna qurbaha ku dhibtoonayay oo la kulmayay cunsuriyad iyo dalkooda inaysan lahayn iyo dhibaatooyin kale oo xagga bini'aadantinimada iyo xagga maskaxiyan intaba marka mar walba waxaan rajaynayaa bahda warbaahintana in ay aragti gaar ah ay u yeelato dhacdooyinka quruxda badan ee hal abuur kale ee horumar kale ee bulshada dhexdeeda ku jira ee kaliya aan maaragtay focus kala saarin tabinta wararka iyo arrimaha la xiriira dhilooyinka ma garanaysaa xanafta leh waan kaga mahadcelinayaa bahdina halmaal dadaalkaad ugu jirtaan inaad maaragtay soo bandhigtaan bulshada dhexdeeda waxyaabaha ku qarsoon dhalinyarada waxaan leeyahay shaqadu ceeb maaha shaqadu sharaf weeye haddaysan dhalinyaradu iyagu shaqaysan oo san noloshooda dhacsan waxba noqon mayso marka hadalkay gabagabada dhalinyarada waxaan kula talin lahaa qurbaha in haddaad ku fikiraysaan Ibrahim baa tusaale idima waa role model weeye Ibrahim isagaa tusaale idinku filan inaad waddankiina ka shaqaysan kartaan shaqayna taallo uu tusaale idinku yahay wuxuu tusaale idinku yahay qurba inuusan wax sharaf ah lahayn qofku markuu tago baa waxa ku dhacaya stress iyo dib iyo cidlo iyo rafaad iyo nolol adag iyo wax walba inuu ka fakarayo inuu ka fakaro kiradii inuu ka fakaro korontadii inuu wax walba ka fakaro waxaan maanta ka fakareen xorriyad waa haysatid meesha rabtay xanas fariintaas baan faraya Ibrahim wuxuu noo noqon doonaa role model insha Allah Ibrahim adigana xaflad weyn baa kugu casuumi doonaa abaalmarin noo kugu siin doonaa shaqada haysid
iyo tusaalaha u tahay dhalinyarada.